كنت وعن وناكسنا داود الكسود وهذا ورك هو وين الصومالي عالم تقود بدأ تقود داون دونتان وحاكم النقد دونا دولة فدرال كي الصومالية يا كل بعض إن سوء أفجره والقلك وقوع سلاء كسود قبل كيان أكلنا كأورك الشباب تليها عيدا كلوكتي حوق دلك الصومالية يا فافايا ورك وجود بيها داود دونتان لأنها مامل كبود لأنه وحوكه تجيا طلابة كسوه جهن برلمان كمامل كاس بوتلان وآدو إبصدي طلابة برلمان كي قادين يمدحونه إبصدي دينو isku dayo inuu ka hortago ayaan idin soo gudbin doonaa waxa ay tahay qodobadana kale waxa qayb ka noqon doona magacyada ilaa 40 qof oo Soomaali Mareykan ah ayaa lagu soo ogay dacwad culus oo kan ah lunshada lacag milyan dollar ah waan idin soo gudbin doonaa magacyada 40 kaas qofood ee Soomaalida ah ee dalkaas Mareykan ku noolaa waxa kale oo daawan doontaan shirkad shidaal qodiska waday deegaanka Soomaalida Itoobiya oo shaqadii laga joojiyay maxay sababtay shirkadaas ciidamo culus ayaa loo haystaa iyo markaas in xatooyo waaweyn ay ka sameeyeen gudaha deegaanka Soomaalida dabada kale waxa qayb ka noqon doona wasaaraha Soomaaliya ayaa qaybiyay wafdi ka socda qaybada midoobay qodobadaas aan ku faahfaahin doona wararka kale arrimaha caalamka ee diblomaasiyadda fadlan haddii aad noqoto tamar kale subscribe ku saara gambalka nafro oo sheer garay saaxiibadii meel kasta joogaan adigoo commentiga like inoo reebaya badmaasintiin aynu ku bilaawno dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la soo afjaray howlgalkii ugu cusub ee ku socda gobolka Hiiraan taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka General Maxamed Taliil Biixi oo la hadlay warbaahinta ayaa shacabka ka qaaday in la soo afjaray howlgalkii balaarnaa ee maalmahan ka socday gobolka Hiiraan Taliil Biixi ayaa sheegay in intuu socday howlgalkan oo lagu magac daray waa beri labo lagu dilay in ka badan 127 xubnood oo ka tirsan al-shabaab sida uu hadal ku dhigay taliyaha al-shabaab waxa halkan lagu dilay 127 oo ah cadowgii laguna dilay dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay Hiiraan ayuu yiri Taliil Biixi isoo kale wuxuu intaas ku daray in xubnaha kale ee al-shabaab ay ka firxadeen Hiiraan isla markaana ay howlgalkiisa uu sii wadi doono inta lagu xoreynayo dalka oo dhan sida uu hadal ku dhigay General Biixi taliyaha ciidanka lugta oo hadalkiisii wata ayaa sidoo kale xusay in la furay laamiga dheer ee isku xira beledweyne iyo buulaburti oo markii horeba ay gooyeen al-shabaab ugu dambeyn wuxuu bogaadiyay ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka macbuusleyda ee fuliyay howlgalkaas isagoo soo kalena u mahadceliyay dhammaanba reer Hiiraan dhankooda ma jirto al-shabaab hadal ka soo yeeray oo ku aadan in markaas ay gabahanba ay iskaga faaruqeen deegaanadii ay kaga sugnaayeen gobolka Hiiraan inkastoo la leeyahay waa ay soo rogaal celin karaan maadaama markaas ay qorsheynayaan weeraro culus oo rogaal celin ah oo kalan ah dowladda iyo ciidamada macbuusleyda ee gobolka Hiiraan ku sugan guud ahaan dalka waxaa ka socda ogollada lagula dagaalamayo al-shabaab ka oo markaas siyaabooyin kala duwan dadka ay uga hadlayaan markaana baarlamaanka maamulka Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Said Abdullahi Dani ayaa lagu wadaa inuu isniinta ka hor isku shaandheen kooban uu ku sameeyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada maamulka Puntland wararku waxay sheegayaan in isku shaandheyntan ay saameyn doonto wasiirada ugu muhiimsan xukuumadda qaarkood si looga hortago in baarlamaanka kalsoonida ay kala noqdaan wasiiradaasi madaxweynaha ayaa doonaya inuu isku badbedelo wasiirada qaarkood si uu meesha ugu saaro talaabada ka soo wajahan baarlamaanka maamulka Puntland oo ay ku aadan diidmada ay qorsheynayaan xukuumadda maadaama isku shaandheyn uu doonayo Said Abdullahi Dani oo xaaladda ku xun kadib markii uu ku dhaway doorashadii Soomaaliya 15 bishii May dhinaca kale waxaa lagu wadaa inuu magacaabo agaasinka madaxtooyada iyo qaar ka mid ah agaasimiye waaxidada madaxtooyada maamulka Puntland kadib markii agaasimihii maamulkaas uu dhaqaray mobilkiisa iPhone-kana oo markaas ku fiiray kadib xanaaq culus uu ka qaaday hadal agaasimaha ka soo baxay Siciidan uu ku weeraray Dani oo arintaas ka aroodane oo sababtay in agaasimihii xilka uu ka qaado isla markaana uu fiiro qaybtii dhexe channelkeena ayaa daawanaysan saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtahay fadlan subscribe noo saar oo nagu dhiirigeli oo na soo booqo saaxiibada kan u sii share garay adigoo like iyo comment inoo reebaya aad baad u mahadsantiin had iyo jeer waan kaga mahadcelinaynaa sida aad nala jaan qaadaysaan markana waxaan eegaynaa dowladda waddanka Itoobiya ayaa qandaraaskeeda ka joojisay shirkad qaabilsan shidaalka oo laga leeyahay Shiinaha shirkadan oo ay qayb ahaan leedahay dowladda Shiinaha ayaa shidaal qodiska waday dowladda deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya waxay sheegtay in shirkadan Poly PGL ay ku guuldareysatay inay raacdo heshiiska ku saabsan dhaqaalaha iyo dhanka farsamada ee shidaal soo saarista dadka deegaanka ayaa ku eedeeyay shirkadan inay sameysay xeelasha biyaha kadib markii ay shirkadu ay ku dadeysay waxyaabo waxyeeleynaya deegaanka shirkadan kama aysan hadlin eedeymaha loo jeediyay dowladda federaalka Itoobiya ayaana qorsheynaysay in ay ka faa'iideysto ceelal laga helay shidaal oo laga helay deegaanka Soomaalida laakiin waxaa jirta cabasho ay dadka Soomaalida ka qabaan mashruucan oo ah mid markaas aad u baaxad weyn
shirkad Shiineys ah oo in muddaha qiimeyn ku sameeysay ceelasha shidaalka sida loo wajihi karo hawsha qodista ayaa dhawaan dowladda federaalka Itoobiya waxaa xaqiijisay in la qaadi doono ama in la qaadi karo talaabada ka faa'iideysiga muddo dheer ayay Itoobiya ku holaneed inay markaas xog dhameystiran ka hesho kheyraadka dabiiciga ee gaarka ku ah gobolka Soomaalida hase shirkadan ayaa lagu arkay arrimo markaas qalqal gelin kara dadka shacabka nafsadooda maadaama ceelashii markaas la sheegay in shirkadda ay sameysay saas awgeedna markaas Itoobiya in gabahaan bay ka joojisay in ay ka sii hoogasho gudaha dowladda deegaanka Soomaalida waddankaas Itoobiya shirkadan ayaana laga leeyahay gudaha waddanka China guddo wararka arrimaha caalamka ee diblomaasiyadda ayaa daawan doontaan saaxiibayaal oo arrimaha ugu waaweyn ay qayb ka yihiin arrimaha ku saabsan xiisadda madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Ruushka oo cirka isku shariirsa guddo ayaa daawan doontaan si markaan Mareykanka Soomaalida dalkaasi ku nool ayaa waxaa la soo sheegayaa in Soomaali badan oo 40 gaaraysa ay lunsadeen lacag aad u tiro badan oo milyan dollar gaaraysa waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday dacwad kan 47 qof oo badankood Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay ku lug yeesheen xatooyadii ugu weyneed ee Mareykanka lagu sameeyay lacag lagu talagalay gargaarka COVID-19 waa cajiib ama kaag ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed maadaama Soomaalidii ay noqdeen kuwa tuuga ah dhaca iyo burcadana ay qayb ka noqdeen maadaama lacag loogu talagalay cudurka COVID-19 ay lunsadeen magacyada dadka ku jira liiska dacwadda markaas lagu soo oogay ayaa markaasi waxaan loo haystaa kaalinta ay ku lahaayeen 250 milyan oo laga xaday barnaamijka ay dowladda federaalka Mareykanka ugu talagashay nafaqeynta carruurta dhammaan dadkan kuma jiraan kuwa lagu cadeeyay dambiga loo haysto waxayna sugayaan maxkamadeen kuwa badan oo kamid ah ayaa si toos ama ayagoo markaasi marinaya qarinadooda sheegay inaysan wax dambi ah gelina Hadlaariyaha qaranka Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Lake ayaa talaadii sheegay in qaar kamid ah dadkaas loo soo xiray dacwadaha ilaa imika lagu soo oogay dadkan waxaa kamid ah shirqool qiyaano lacag diris been xalaaleen lacag ilaaluusha dacwadayaasha federaalku waxay sheegeen in eedeysanaashu ay heleen lunsadeen oo lacag been xalaaleen milyan dollar oo ay dowladdu markaas ka dalbadeen iyagoo markaas sheeganaya inay tahay cunno ay ku quudinayeen carruurta qoysaska saboolka ah waa kuwa magacyada dadka dacwadaha lagu soo oogay inkasta dacwadeedka ay ku jiraan waxaa ugu horeeya Mary Box oo 41 jir degan Apple Valley Minnesota xasaasayaasha iyo agaasimaha hay'adda Feeding Our Future labo Abdikariin Cabdullaahi Ile oo 39 jir degan Princeton Minnesota shaqaale ka tirsan Feeding Our Future saddex Saalim Axmed Saciid oo 33 jir degan Plymouth Minnesota milkiye iyo shaqaale maqaayad markaas Safari Restaurant lagu magacaabo kan afraadna waa Cabduqaadir Nuur Saalax oo 36 jir degan Columbia High Minnesota milkiye iyo shaqaale maqaayadda Safari Restaurant Ahmed Shariif Umar Hashim oo soo kala loo yaqaano Saalax Doonyaale oo 39 jir degan Minnesota asaasaha shirkadda Olive Management ICT kan lixaadna waa Cabdinuur Saalax oo 34 jir degan Minnesota kaayihii hore ee siyaasadda ee duqa magaalada Minneapolis Choco Free kadib ibsidii hay'adda Stigma Free International Abdikariin Cali Axmed oo 36 jir degan Apple Valley Minnesota asaasaha shirkadda SA Limited dhammaan magacyada dadkan Soomaalida ah ayaa lagu soo oogay dacwadda la xiriirta inay lunsadeen lacagahaas markaas loogu talagalay dadka ay abaaruhu ay saameeyeen